afhayeenka guddiga doorashada Somaliland Saciid Cali Muuse ayaa fariin u diray xisbiyada waxa uu uga digay inay shaaciyaan natiijooyin aan rasmi ahayn kuwaas oo uu sheegay inay jahawareer ku noqon karaan shacabka waxaana uu sheegay dhammaan shacabka iyo xisbiyaduba inay ku ixtiraamaan guddiga doorashada natiijada kama dambeynta ah ee xaqiiqada ah isla markaasina la joojiyo dhaqdhaqaaq kasta oo u muuqda in lagu taageerayo natiijo aan rasmi ahayn horena waataanu idinku sheegnay iminkana waxaan idin sheegaynaa maalintii labaad ee ka dambeysay doorashadu in xaaladdu ay aad u wanaagsan tahay tirintii iyo hawshiina lagu mashquulsan yahay oo la wado meelaha qaarkood meelana ayba dhammaadeen waxaa jira warar kaleeto oo soo baxaya oo aan horena idinka dignay aanu xisbiyada uga dignay iminkana aanu mar kale uga sii degayno waa soo tarayaan wararkaasina waxa weeye wararka soo taraya in la sameynayo dabaaldegyadaas loo dabaaldegayo xisbi walba leeyahay annaga ku guuleysanay taas mid commissionka ka soo baxday maaha tiro aanu ku dhawaaqnayna maaha mid loo dul qaadan karayana maaha in dadka la majra habaabiyo oo warar beena laga dhargiyo wararkaasi wax yeelo mooyaane wax tar ma laha waanu ka dignay iminkana waanu ka digaynaa xataa waxaana soo gaadhay warar sheegaya in wadamada qaarkood laga dabaaldegay oo ka baxsan Somaliland dadkaasi maaha dad jooga Somaliland oo war haya waxa ka taagan waxaanu iyagana uga digaynaa dadkiina dibadda joogo ka daaya wararka beenta ah ee aad fidinaysaan xafladaha aad qabanaysaan sawirada aad soo direysaan si kastaba ku soo diro oo qaar ba email ku soo diray ka joojiye baanu leenahay kuwa gudahana ee xafladaha hoosta ka xidhanaya hodheelada ku qabsanaya goobo kale ku qabsanaya iyadana wararkoodu wana soo gaarayaan waxaanu uga digaynaa mar kaleeto iyo mar labaad iyo mar saddexaadba inay joojiyaan waxyaabaha ay wadaan oo ay ku ekaadaan inay sugaan natiijada commissionka doorashooyinka qaranka ka soo bixi doonta taasa asal ah taasa dhab ah taasa xaqiiqo ah tirada aanu soo gudbino waxaanu u gudbinaynaa oo aanu gaarsiinaynaa maxkamadda sare ee qaranka iyada markaasi ku dhawaaqaysa annaguna waa ku dhawaaqeynaa mid hordhaca taasi waa taa dhanka kale afhayeenka guddiga doorashadu waxa uu fariin u diray gaadiidka maalintii doorashada la siiyay nambarada ay ku dhaqdhaqaaqi karaan ee ogolaanshaha guddiga doorashada ay ku siiyeen maadaama la joojiyay gaadiidka intiisa badan inay soo celiyaan nambarada gaadiidka ee guddiga doorashooyinka ay siiyeen isla markaasina ay geeyaan xarunta ugu dhow ee guddiga doorashada ay ku leeyihiin gobol kasta dadkiin laga qaatay nambarada baabuurta ee aanu siinay haddii ahaan lahayd cusbitaallo haddii ahaan lahayd shirkadaha dayuuradaha haddii ahaan lahayd xafiisyada nala shaqeeya haddii ahaan lahayd xisbiyada way fara badnaayeen dadkaasi waxaanu doonaynaa inay lambaradii baabuurta ee aanu siinay ay soo celiyaan taasi oo ah arrin nabadgelyo ciidamada bilayska iyo kuwa wadooyinkana waxaanu faray in ay ururiyaan intii khasab wadada lagu joojin lahaa oo laga qaadi lahaa adigu ka fur gaariga markaad gaariga ka furtana fadlan xarunta commissionka doorashooyinka qaranka ee kugu dhow ee gobolada gay Abdishakuur Dayib Maxamed Hon Cable TV Hargeysa